Shacabka xoolo-dhaqato beeraleyda ah ee ku dhaqan tuulada Qalloocan ee degmada Gunagadaha ee gobolka Jarar ayaa wax soo saarka dalagga beeraha ay tabeen sanadkan uu yahay mid meel wanaagsan maraya isla markaasina ku dhow xilligii jarista ama munaafacaadsiga balse baraarug badan oo jira awgeed shacabka tuuladani ku dhaqan oo aad ugu rajo weyn inuu dalag fiican oo waxtar u leh bulshada uu sanadkan usoo go'o ayaa haddana waxaa dhanka kale jira caqabado badan oo dabiici ah oo ku gadaaman wax soo saarka dalagga ee beerahaasi kaasi oo bulshada ka hortaagan inay fashaan dalagga beeraha xilligaas soo socda waxaana ilaa hadda saameyn baan ku haya dalaggan ay fasheen kana asiiba cayayaan dabiici ah oo si meelaha ugu dhashay dalaggaasi iyo roob yaraan jirta dhammayn saameyntaasi dabiiciga awgeedna waxay bulshadaasi walaac badan ka qabaan in dalagga uu soo go'aya oo noqdo mid waxtarkiisu aan ku filnaan hase ahaatee taasi beddelkeeda qorshiyaha kor u qaadidda dhanka cuntada ay xukuumaddu qaatay ayaa ay kaalintoodii ka soo bixeen waxaana sanadkan usoo go'i doona dalag dhan 10,000 oo hektar maamulka degmadaasi Gunagadaha waxay xukuumadda deegaanka ka codsanayaan maadaama ay dhankooda tamarta ay lahaayeen ee dadaalkooda kula tacaaleen bulshada xoolo-dhaqato beeraleyda ee degmadaasi ee ku howlan wax soo saarka dalagga wixii tamarta xukuumadda ah sida gashiyada beeraha iyo qalabka falashada ka taageerto si ay halkaasi uga sii anba qaadaan geedigooda horumarineed ee bulshada meel halkan adigu 2 kiiloomitir hal kiiloomitir loo jirta waxaan ka sameynay irrigation canal kaasoo beeraha waraabinaya xaggan waxaan malinayaa ilaa 2 kiiloomitir tuuginoo jira intaas waa dhul beereed waxaa laakiin ay u baahan tahay weli inaa waxa laga sii qabtay u baahan tahay salaam biyihii markay soo faafeen haddana biyo faafiye kale in la sameeyo u baahan yahay oo iga halkaas bannaan oo kale waa dhul beereed biyuhuna ma gaarayaan marka annagu ka degmo ahaan wixii aan qaban karnay waan qabanay dabcan intaana kaga hadhmayna haddii la yiraahdo waan sii wadanaa bulshada ka qaybgalkii bulshaduna isaguna waa qasab mar walba aan ku wacyigelinaa in bulshadu ka qaybgalka kaga qaadato bulshaduna way ku foorsatay hadda 27 sano u dambeeyay waxaa lagala dagaalamay wax soo saarka iyo nolosha caadiga ah marka hadda bulshadu waan wacyigelinay dadku u diyaarsan yahay in wax soo saaro in laga maarmo in wax laga sugo dadku in xooggiisa ay ku kaaftamaan bay rabaan marka taa innaka dawlad ahaan waxa loo baahan yahay in dadka laga taakuleeyo haday gashi tahay waxyaabaha kale ee gashiyada yar oo kale annaga ku filan ka degmahan laakiin iga cagafyadoo kale u yar yihiin 2 cagaf baa degmada 4 cagaf baa shaqeysa degmada dhan 19 qabale ka kooban baaxadaale 4 cagaf baa u shaqeysa hadda sanadkan waxaan rabnaa haddii la yiraahdo inaan 2 cagaf soo iibsano ka dambeeyana insha Allah inaan oo de hawlgalkeedu waan ku jirnaa laakiin cagafyadoo kale waa gashi loo baahan yahay jeexjeexyadoo iyo gohdiyada oo runtii caqabad weyn dhulkii isagana la beeran lahaa oo 27 sano u dambeeyay aan la beeranin oo isaguna xidhmay oo dhir ay xidhay oo in la baneeyo u baahan oo cagafyadu waaweyn u baahan marka caqabadahaas jira runtii qabalaygan waa qabalay halbowla ee dhanka beeraha isla markaana qabalay model waa dhanka beeraha degmada Gunagado waxaan ku rajo weynahay insha Allah sanadka inuu dalag fiican oo tayel uu ka soo baxo walow ay iska jiraan caqabadahaas oo la xiriira dalagii waa la tabcay runtii dadku way dadaaleen bulshadu baraarug badan baa jira laakiin dalagii waxa ku dhashay cayayaankaas oo wax badan oo waxyeello u geystay tusaale ahaan diirta oo kale waa dhibaatada koobaad ee beeraha caqabada ku ah sidoo kale diirta waxa uu heliya wax la yiraahdo dixiri oo isaguna intuu dalagga tusaale ahaan beertu markay beeran tahay dalagga galo gudaheeda sii soconaya ilaa dhuux marka caqabada koobaad waa cayayaanka talabaad waxa weeyaan waa xogay samada yar kulul oo naqi dambe maadaama dhulka aad u helin samaduna waa yar kulushahay marka insha Allah waxaan aad ugu rajo weynahay dalag fiican oo macna leh inuu ka soo baxo qabalaha maadaama hore u soo sheegnay caqabada koobaad inay cayayaanka dalagga ku dhashay tahay waxaan codsanaynaa koow in wax laga qabto cayayaanka laba dadka inta badan waxay ku fadhiyaan waxa jira laago ku soo daaco oo dhulka waraabiya laagihii marka goodi bay noqdeenoo dhul beereedkii waxyeello badan bay u geysteen iyadana laagaha khaasatan hadda laagtan soo marinay qalbowle